السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو صاحب ياض حرجنا هنا عفمت خطين دماتين با سودو حنيني صلاة بايدافتي أستانت معجسة أستانت معجسة سيدا أي ويدان أخويانا دا قطع قصصي علم نفسيغا علم بارس لغو سميي قودعان دادك كوبوليستي لنعيدا كردوان إن الله شودا kuwaas oo iibka kaga tagay raadad togan oo la taaban karo ayaa lagu ogaaday in ay jirto astaan ka wada dhaxayso ay wadaagaan sumadu ay wadaagaan maahan maskax badan maanfurnaan ama waxbarasho xul ah oo ay heleen maaha awood iyo fulin ama hanti ay ku heleen si dib yar oo bilaadhidid ah taasoo u garab siisay guushi ay hanteen taalidkeedu badankoodu ma helin wax ka mid ah astaamahan waxaana ka mid ah duul maskax ahaan liitay kuwa guuldareystay waxbarashadii asaasiga ahayd kuwa ku bilaabay noloshooda dambijirnimo iyo darbijiir iyo daar kale oo aan heli jirin nolol maalmeedkooda astaantan ay ka midaysan yihiin ayaa u furtay irdaha guusho waxa ayna ka dhigtay kuwa hirgeliyey guul nololeed oo wax ku ool ah kuwa ilaaliya salaado waxa ay wadaagaan astaantan guud ahaan oo muhiim u ah horumarka noloshaada duulkan ma haysan awood iyo duruufo u gaar ah balse keliya waxa ay horumariyeen astaantan mucjisada ah ilaa ay ka dhigteen caado waxayna iska dhaadhiciyeen in ay kooxdan haysato awood iyo duruufo u gaar ah ama ay xagga sare uga timaado kaalmo rabbaani ah taas oo u saalayso gudashada salaadaha astaantani waa gundhiga guul kasta oo uu gaadho insaanku xakamaynta nafta self discipline xakamaynta naftu waa astaanta mucjisada aynu kor ku soo xusnay maareynta nafta ayaa asal u ah ilaalinta salaadaha waxaa suuragal ah in aad filaysay inaad ku yeedhinayo xalfalaanfud sixir ama dhabe fudud oo ay mareen kuwii ku guulaystay noloshooda ama ilaaliyey salaado laakiin xakamaynta nafta la'aanteeda weli kaadheed ee ogsoonow xakamaynta nafta ayaa ku kaalmaysay guulaystayaasha inay hirgeliyaan yoolashooda nololeed ee ugu waaweyn sida oo kale kuwa tukada waxa ay ku garab siisay inay ka tagin salaad si kasto ay u adag yihiin duruufo xakamaynta naftu waxa ay kaa dhigaysaa shakhsi jaad gooni ah nolosha ayaa kuu kala horumaraysa sida oo kale waxaa kuu soo jilbinaysaa liibaanta maxaa yeelay waxa aad waafaqsan tahay abuurtaada xakamayntu naftu waa in aad ku qabataa shaqada ku sugaysa wakhtiga aad u asteysay jeclow ama ha jeclaan xakamayntu naftu waa inaad ku kala xulan xaalalka ku hor yaala siday u kala fudud yihiin balse waa inaad ku wada qabataa habka kugu adkaadane in aad qabato waxa aad jeceshahay ee sahlan macaan iyo farxad ayaa kuu soo jiidaya goorta aad gacanta ku hayso laakiin gunta iyo gunaanadku waxa aad dareemi quus iyo qalbijab si ishuwan waayo waxa aad ka tagtay howlihii mudnaa inaad qabato dhanka kale qabashada arrimaha muhiimka ah waxaa dhici karta bilowga hore ee aad gacanta ku hayso inaad dhaxasho daal iyo dhibaato hor leh laakiin dhammaadka maalinkaaga waxa aad dareemi qaali ahaansho iyo xasilooni waayo maalinkaaga waxa uu ahaa mid kugu